dabcan hooyadii dayacna waa u dhimatay. waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah wiishkii la keenay wiish maaragta bahalka qaadi kara muusan ahayn. wuu qaadaya wuu ku deynayaa. bal qiyaas adigu hadda hooyadaa oo wiishka intuu bahalkii xamuulka qaado deynayo ee hoos ku jirto. marka hooyada markii hore dhaawac maysan lahaynba, laakiin wax jijibiyey oo madaxeeda dhaawac u gaarsiiyey. il xitaa way ka baxday, afka wuu jabay. waxaa heerkaas gaarsiiyey waxa waaye gaariga xamuulka oo markastaba wiishka ka fakanayo. marka meydkii CID markii laga keeno wallaahi aada ugu naxay qaabkii u tiilay. marka waxaa go'aansaday habeenkaas inaan la jiifto iyada oo aan habeenkii ugu dambeeyona ahaa oo aan la seexdo. alxamdulillaah. allah u naxariistee gurigan iga dambeeya waxaa deganaa hooyo Jamiila oo runtii ka mid noqotay allah u naxariistee dadkii ku geeriyooday gaarigii ku rugmaday isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho. allah u naxariistee shalay ayaa la aasay. geerideeda kadibna waxaa baraha bulshada qabsaday wiilkeeda Salmaan oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho, kaasi oo sawiro laga qaaday lagu soo bandhigay baraha bulshada kuwaas oo muujinayay in habeenkii meydka hooyadiis isaga oo dul barkan oo uu seexday. ugu dambeyn Salmaan ayaan halkan kula kulnay, waxaana weydiinay dareenkiisa iyo sawirada laga qaaday ee lagu baahiyay baraha bulshada. naxariisto geerida naxdinta leh hooyo ku timid marka labaad waxaa nooga sheekaysaa sidii wax u dhaceen. walaalkay waa mahadsan tahay. adigu maalinteed ay macaagta falka uu dhacay oo hooyo geeriyoonaysay. adiga afuraan usoo baxay guriga, adiga 11:20 meelahaas aa guriga imaaday. 10 daqiiqo kadib marka waxaa arkay reerkiioo waxa raadinaya hooyaa maqan. marka iyada intaas may maqnaa jirin marka inaa raadiyaa go'aansaday. marka intaa wadadii sii socdaa waxaa la kulmay marka shilkii Jubba ka dhacay. aadaa ugu welweli run ahaanta. kadibna waxaa aaday meel leegu sheego hooyo inay aaday oo waxa ah isgoyska taalada, halkaasoo ay qara kasoo iibsanaysay. marka maamadii markaa u tagana waxay ugu tiri lacagta xitaa ima siin ilbaraqsiya wax ku raacday gaari. halkaasay gaari kasoo raacday, shilkiina meesha ku qabsaday. marka insha allah waa soo laabtay. waxaa u soo laabtay gaarigii buuq dheer kadib meydkii aqoonsanay. wallaahi wax laga sheekeyn karo mayn habeen oo aad u qaraar u ahaa run ahaantii. meydkeeda ku dhowaad 3 sac maaragtaa laga daba ordaayo oo si wiishka oo bahalkaas loogu qaado, gaarigaas xamuulka loogu qaado. 4 sac kadib ay suurta gashay in laga qaado. kadib haddana meydkii haddana waxaa noola dhaha CID waxaa kasoo doonanaysaa CID ka doonanay. ado 8 sac xilli ay tahay habeenkii meydkii naloo keenay. alxamdulillaah. shalaa aasna hooyo maasha allah. Salmaan waxaa dadka dareenkooda bedelay sawiro adiga iska soo qaaday oo ku saabsanaa adigoo leh guriga caawa waxaa la seexanayaa meydka hooyadii oo ay gacmaha ku saaran yihiin, iyo mar adiga oo qabriga hooyada barkan. ka waran dareenka noocaas ah? wallaahi habeenkaas habeen aad u xun oo ii ahaa. waxyaabo badan oo carri igu abuur way jiraan. wallaahi waxyaabo badan oo magaalada Muqdisho caadi ka ah. dabcan hooyadii dayacna waa u dhimatay. run ahaantii waa qiyaasi kartaa wiil hooyadiis la kulmay ujeeda geeriyootay, gaari uu dul saaran yahay muddo 3 saacaad ujeeda uu dul saaran yahay. waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah wiishkii la keenay wiish maaragta bahalka qaadi kara muusan ahayn. wuu qaadaya wuu ku deynayaa. bal qiyaas adigu hadda hooyadaa oo wiishka intuu bahalkii xamuulka qaado deynayo ee hoos ku jirto. marka hooyada markii hore dhaawac maysan lahaynba, laakiin wax jijibiyey oo madaxeeda dhaawac u gaarsiiyey. il xitaa way ka baxday,
afka wuu jabay. waxaa heerkaas gaarsiiyey waxa waaye gaariga xamuulka oo mar kastaba wiishka ka fakanayo. haddana tamartii hal sac kale ayay qaadatay haddana in wiishka saddexaad la sugo, taasoo ka dhigan 4 sac inay ku hoos jirtay gaariga xamuulka. marka meedkii CID markii laga keeno wallaahi aad aan ugu naxay qaabkii u tiilay. marka waxaa go'aansaday habeenkaas inaan la jiifto iyada oo aan habeenkii ugu dambeeyona ahaa oo aan la seexdo. alxamdulillaah wallaahi dareenkeyga oo shalayna maba ka hadli karo. waxaa u mahad celinayaa familka iyo qoyska hooyaday, maasha allah ma i dareensiinin sida wiil qoyska ugu yaro kale inaa ahay il dhaqmeen. hooyna si qurux badan u aaseen. wallaahi aniga waxa waa awoodi waayey, itaal waa lahaa waayey. marka xitaa qabriga inaan kasoo tago ma jeclaysanin, laakiin ugu dambeyn walaalahay iga soo kaxeeyey.